أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنا وناكسن داودياشا قدرتي قيمها مدن برتنا قد داونسان وقلبيتي في حرمتي مقالة أدمنتري دالك كندا waxaan caawa ku soo casuunay telefishinka ee nugula jira khadka telefoonka waa walaalkeen Liban Mustafa Xasan Liban ku soo dhawow galbeed TV waa ku soo dhawahay walaalkeen Maxamed Deeq waxaan salaamayaa dhammaantiin iyo hawlwadeenyaasha galbeed TV-da waayahay adiga ayaa mahadsan intaanan sheekada amba wareysiga Liban aanu sii guda galin waxaan rabnaa bal biograph amba nuxur gaaban inaan niga siino Liban waayo amba Liban muxuu soo qabtay Liban san wada ogsoonahay waxaan ka aragnay shaashadaha isagoo ay markaas ay mucjisada foosh xun ay ku dhacday laakiin in dad badan oo Soomaaliya ay aqoon u lahayn amba ay ogeyn baa jirta Liban runtii waa nin dhalinyaro ah oo daayar oo aqoon-yahan isagoo markaa ku dhashay dalka Djibouti ee caasimadda Djibouti kuna soo barbaaray dugsi hoose dhexe ilaa heer jaamacad ka gaaray isla markaa Liban isagoo jaamacadda Djibouti ku jira waxa uu ka bilaabay shaqadiisii ugu horeysay boorka Djibouti amba sida loo yaqaan badakada Djibouti waxa uu yimid dalka Faransiiska magaalada Lyon isagoo markaa xagaasi ka bilaabay inuu jaamacaddii ka dhigto jaamacaddaas oo ahayd macalinimo Liban isla markaas uu jaamacaddii dhamaystay waxa uu soo wareegay waddanka Belgiumka isagoo xagaasi ka bilaabay inuu ku shaqeeyo macalinimo oo ah xeerarka waddanka dalka Belgiumka Liban waxa uu ka mid ahaa ururka MGO markuu Djibouti joogay markuu yimid wadamada qurbahana waxa uu isku dayay inuu arrinkii siyaasadda sii xoogsiyo isagoo markaas gudoomiye ka ahaa MGO ururka dhalinyarta oo loo yaqaan dhaqdhaqaaqa dhalinyarta isla markaasna xubin ka ahaa USN oo ah xisbiyada mucaaridka ee Djibouti USN waxa weeyaan wadaba xisbi oo isku biiray oo mucaarida Liban waxa uu ka ahaa xidhiidhiyaha toddobada xisbi isla markaasna isagoo ahaa xubnaha kamid ah ee hogaaminaya ee sare ee MGO haddaba Liban ayaan u gudagalanaa su'aalihiisii isagoo nooga jawaabi doona habka wax u dhaceen iyo xagga xaaladiisu maanta maraso iyo xagga dacwadiisu maraso jinna Liban inagoo weydiin doona sida wax u dhaceen iyo habka wax ku yimaadeen iyo arrimahaas oo dhan Liban mana maqlaysaa Liban waan maqlayaa deeq waan ku maqlayaa waayahay Liban ku soo dhawow mar labaad waxaan rabnaa bal Liban bal inaan dadka aan u sheegno dad badani fikirka ay aragtidaadii amba dhaawacaagii un bay arkeen laakiin aqoon dheer oo sidaas kuma aysan lahayn marka laga reebo dhalinyarada reer Djibouti amba dalka reer Djibouti ba waxaan ogsoonahay maanta inay Soomaalida ay meel kasta ay joogto ay ku gurmatay markay mucjisada foosh xun ugu dhacday oo iyagana aad hore uga mahad celisay oo u mahadnaqday Soomaalida oo dhan iyo dadka qurba joogta ah bal waxaan rabnaa su'aasha ugu horeysan rabnay inaan ku weydiino waxay tahay goorma ayay Liban mucjisadan cajiibka ay dadku la yaabeen ee naxdinta leh goorma ayay dhacday waxay dhacday sanadii hore bishii 11aad lixdeedii amba haddaan si kale u sheego 6 November 2016 way dhacday habeen axaday soo galayso bay ugu dhacday waqti sabad ah oo labadii habeenimo ka dambeysay lagu qiyaasi karo waa sax Liban waxaan ogsoonahay inaad hay'ad xubno aad ugu firfircoon kana mid ah MGO oo loo yaqaano dhaqdhaqaaqa dhalinyarta mucaaridka isla MGO oo hoos timaada USN markaas bal arrinka siyaasadda ah oo xaggaasi intayna waxaan kugu dhicin waxa jirtay maqaal dheer oo runtii aad qortay bal maqaalkaasi wax ma uga taaban kartaa adigoo soo gaabinaya dadka warta waxa weeyaan sidaas weeyaan deeqo xisbiga MGO ama dhaqdhaqaaqa dhalinyarta ee mucaaradka ayaa ku jiray xubnaha sare ee maamulkana waa ku jiray
ilaa iyo jabuutina halkaasaan kagaa soo jiray markaas waxaad dhacday inay dhiyarta mucaaradka ee u wada sinaayeen mucaarad oo dhan amba dalada iyo santa ku midoobay markaas waxa weeyaan todobada xisbi oo mucaarada waddanka jabuuti ka jiray todobadaabay iyo u sinaayeen oo wax midaata maaragtay si midaata ugu doodi jireen halkan waddanka belgium marka la yimid waxa dhacday inay xisbi keliyaata uu iska yeesho amba xisbi MRD la yidhaahdo yaa maaragtay iska qabsaday oo dhalinyarta ka yidhi annagun baad noo hadli karaysiin cid kale uma hadli karaysiin annagun baad nama dhaqdhaqaaqi karaysiin xisbiyaashii kale lixdii xisbiga kale uma dhaqdhaqaaqi karaysiin taasay dhibtu ay keentay markaas cadaadin baana soo gaadhay iyo cunaqabatayn taas markaan la soo saarnayna waxaan ku qoray pageka facebookayga yaan ku qoray oo artikalo badan ka qoray ama qoraalal badan aan ka qoray oo yidhi dawladdii aan ka soo baxsanay iyo kuwan waxba isma dhaamaan aan yidhi xisbigan iyo kuwii hore ismaba dhaamaan xukuumadda maanta waddanka haysa iyo xukuumadda mustaqbalka hayn doontana waxba isma dhaamaan hadday kuwa mustaqbalku ay ka darnaynba taasaan markaa dhibta keentay oo la yidhi maaragtay weliga dhalin nagalama sheegin amba qof belgiumka dalka ku sugan belgiumka nagama sheegin dhalin sidee baa dhalin nagala sheegay markaas dhibtaas iyo xisbigaas MRD ay ugu soo gaarsiiyeen liban fikirkaas markaas ma keligaabaa qabay aragtidaasi aad ka ku muuqatay mise waxaa jirtay xubno ka mid ah xusbiga mucaaridka laftooda amba MGO-gaba amba USN-kaba oo aragtidaas qabay may jirtaa markaan ka hadlano qurba joogta marka waxa weeyaan dadkoo dhan way qabeen fikirkaasi horta dhalinyarta haddaan idhaahdo MGO-da fikirkayga unbay wada qabeen isku wada fikir baan hayn laakiin wallaahi cabsi bay ku dhalisay nin kastaba siduu amba u cabiri lahaa wixii uu arkay uu ka baqay amba uu ka joogsaday uu yidhi sidaas laakiin mucaaridkan dhaqdhaqaaqan maaragtay MGO-ga dhan fikirkayga ayay wada qabeen badankoogu waxaan hayn qof iyo labo qabaa'ilka odagaas ama xisbigaa ka soo jeeda dhabarkayga haystahayn inta kale laakiin fikirkayga qabeen lixda kale xisbiga mucaaridkana isku fikir umaa wada hayn fikirkayga unbay wada qabeen inay xisbigaas maaragtay uu dhib iyo wax kasta uu ku hayo moogtahay dadka iyo dhalinyarta gaar ahaan liban waxaan ognahay inay dhalinyaro aada u fara badan ay ku falowgareeyaan hadday noqotoba Facebook amba Twitterka amba meelahan baaqyada laga soo saaro waxaan ogsoonahay markay wax la mucaaradayo amba olole siyaasadeed la sameynayo inaad runtii ahayd xubnaha aada ugu fircoon microfonka la wareega amba oraada dadka markaas baaqa u soo jeediya waa maxay booshishinka aad ka haysatay ma noo sheegi karaysaa xubinta aad ka ahayd xusbiga waxaan ka ahaa xidhiidyaha xisbiyaasha baan ka ahaa MGO-da waxaan ka ahaa xubnihiisa sare anigoo shaqadaydu gaar ahaan ahayd xidhiidyaha xisbiyaasha mucaaridka oo isku xidhiidhin jiray xisbiyaasha mucaaridka dhammaan iyo dhalinyartana isku xidhiidhin jiray markaa waxaad isku xidhiidhin jirtay toddobada xusbi ee isku yimid ee ka mid ahaa USN soo maaha toddobada xisbi ee USN-ta iyo dhalinyarta baan isku xidhiidhin jiray markaas waxaad bal dadka qaar baa yara fahmeyn oo waxaan rabaa bal ina xaggaas aan u sharaxo waxa weeyaan USN waxa weeyaan waa xusbiyada mucaaridka ah ee waddanka dalka Djibouti oo 7 xisbi oo ka mid ah ayaa magaca soo gaabsaday iyaga ayaa markaa isku yimid oo magaca la baxay isla markaas isaga oo liibaan ka mid ahaa xidhiidhiyaha amba xubinta isku keenida 7 xisbi ka mid ahaa oo isku wargaarsiin jiray iskuna wargelin jiray waxa kale oo xubin ka ahaa liibaan xubin ugu sareysa MGO oo MGO ah dhaqdhaqaaqa dhalinyarta mucaaridka soo saas ma liibaan waa sidaa weeyaan waa sidaas sheegtay weeyaan beer waan garanay waxaa kaloo xisbi kale oo maalmihii ugu dambeeyey bishii November markay gowdaydahay amba gaar ahaan 5 cisho intii nabarkan soo gaarinna waxaan ka ahaa xisbi kale baan furay oo ka qayb asaasaha xisbi jadiid oo mucaarida oo loo yaqaano FBC loo yaqaano amba
awoodda qoyrsocodka isbedelka taasina waxaan ka ahaa asaasayaashii baan kamid ahaa asaasay. waan garanay. markaas ma oran kartaa liban waxaan ogsoonahay sida wararku nagu soo gaadheen isla habeenkaas dabarku soo gaadhiyay inay jirtay shir MGO amba USN kay tahayba garan mayno adaa noo macnayn doona inaad shir la lahaa shirkaasoo lagaga hadlayay arrimaha xisbiga isla markaasna inuu khilaaf xaggaa ka yimid khilaafkaa darteeda ina waxay jirtay meeshaasi laga sheegay oo la yidhi maadaama oo maqaalka horena aad qortay meesha dhexdeedana aad odhaahdii aad ka dhiibatay oo tiri adiga oo daba raacayay maqaalkaagii inaad tiri shirka dhexdeedii inaad ka tiri waan maqalnay haddii ay sidan kusii soconayso lama sii wada joogi karo marka haddaan nahay MGO-ga dhalinyarta waxaan raadinaynaa wax sida noo dhaama markaas waxaa jirtay odhaah markaas ka soo yeedhay xubnaha golaha shirka kula fadhiyey oo iyagu markaas sheegay inayna ay hadalladaadaas amba qoraalkaaga ay diideen isla markaasna ay isku dayi doonaan siday ugu hor iman lahaayeen amba awoodu isticmaali lahaayeen arrinkaasi ma jiraa? shir baan ku lahayn galabtii waa sidaad sheegtay habeennimadii marka waxay ku dhici doonaan nabarka galabnimadeedii shir baan lahayn shirkaasoo si fiican ugaa wada hadalnay oo maaragtay lagu soo dooranayay xubnaha ugu sarreeye MGO-da ama madaxweyneyaga lagu soo dooranayay fikirna ahaanna laga dhiibanayay siyaasad wixii aan soo marnay iyo wixii oo dhan markaas waxaa dhacday fikirkayga dadkoo dhan way ugu raacsanaayeen inaan xisbiga MRD-ga aan iskaga dhigno oon dadkoo dhan u silaano oon aan noqono kuwa independent amba aan xor ah dhalinyar mucaarado xor ah oo maaragtay xisbiyaasha oo dhan si cadaalad ah ugu dhexeeya markaas waxa weeyaan dhalinyarta badankooda sidaan u sheegaaba majoritygooda way raacsanaayeen ilaa waxaan hayn 4 amba 5 qof kaasoon ku joognayna 30 qof aan kor u dhaafsanin committeega amba odhan karayno committeega aan ku shirnay 30 ahayd 5 qof amba 4 qof baa maaragtay fikirkayga igu raacsanayn iyagoo kasoo jeeday markaa xisbiga MRD-ga nabarkayga sidaakooda kasoo jeeday. waxaa loo yaqaanaa daaf baan u malayaa waxa weeyaan waa mudane daahir axmed faarax guddoomiyaha xisbigaas aad magacowday soo saas ma aha? waa sidaa weeyaan daahir axmed faarax guddoomiyaha xisbiga MRD weeyaan waa xisbiga nabarkan amba foolxumadan weli lagu arag ii geystay taasi oo uu soo adeegsaday galabtiiba iga dhahdeen markaan habeennimadii shirkaan ka baxayba si cad oo badheeda lagu sheego lagu yidhi waaga ma gaadhaysid amba subaxa nolol kuma baryaysid oo caafimaad iyo nolol qof waaga kuma gaadhaysid taasoo u joogeen 30 qof maanta marag ay ka ahaayeen de u joogeenna ergeygu soo dartay iyo ergeyo kalena hortooda dadka dhexdooda si badheeda ay iga idhahdeen beri subaxa nolol naguma gaadhaysid laakiin ilaahay baa dadka nafta ka qaada. liban waa run liban waxaad joogtaa waddan marka loo eego wadamada Africa dee ma barbardhigi karno waxaad joogtaa waddan dalalka horumaray ah oo cadaalada oo garsoorka iyo xeerka iyo ruulashaba ku dhaqma takre labaad dee kuma oran karno adigu nacamti qof ay aqoon kugu yar tahay baa tahay ilaahay baa wax garanaya oo aqoon iyo kartiyo wax kastaba leh waxaad waddankaa Belgium aad joogtid waxaad ka mid tahay amba ka mid ahayd dhalinyaradii amba dadka markaas macallimiinta oo waxaad ka dhigi jirtay rules and integration waxa loo yaqaano amba la yiraahdo xeerarka waddanka lagu dhaqmo waddanka dalkaas Belgium lagu dhaqmo maadaama waddankaas aad timid waxaa isku dayday inaad xeerkii iyo waddanka siduu waddanku u dhaqmayay inaad baratid isla markaasna adigoo dadka u dhigi jirayba maadaama oo tahay qof nacamti xeerkii waddanka iyo xaquuqdii qofka bini'aadanka uu lahaa garanaya intaas qofina ay goobta ay joogeen odhahdaa laga yidhi nacamti markhaatiyada haysatid waa maxay waxaan markaas arrinkan daba dheereeyey amba raggii horta ma lahaya raggii nabarka kuu geystay? horta waxa dadkii mid baa lahayaa oo boolisku qabta oo dhakhtarka maaragtay isagoo iska daweynaya lagu qabtay
kaasoo nabar saasa uu soo gaadhinoo maanta ay noo caddahay inuu sanka iyo afka uu ka dhiigayay uun taasina ay feerfeer bilowgiina dhex marayay kaasi uu dhiigga uu ku gaadhay kuwa kalena waa la qaban doonaa haddii eed la idhaahdo waayo maanta waxaan ka haysanaa cadeymo aad iyo aada u buuxa xeer weeyaan waddanka sidaa u sheegtay waa waddan xeerarka ku dhaqma wadanadeeni afrikada maaragtay 100% dhaama waxa weeyaan laakiin cadaalad waxa yurubtu waxay qaadataa kolkol xeer waxaa qaadataa 7 sano 6 sano laakiin arrinteennana waqtigaa muddada dheer qaadanayn waxay qaadan doontaa haddii la idhaahdo laga yaabo hadday ku daro dad sanad ama lababa haddii kale dhawaanba way dhici doontaa waayo maanta gaabti baan u arkanaa haddeed inay dacwadeeda soo dhawaanayso ninkaas oo dhan la helay ninkaa ku rajo qabnaa inaan inta kale iyo maaragtay dadka kaleo dhanba la joojin doono oo sida ugu degdega badan loo xili doono maxkamadna loola tigsan doono ninkaasi iyo xisbigaas maaragtay amarka siiyeyba maaragtay xisbigaas ka soo jeeday kaa dhex galeen ninkaa nabarkaas ninkaa ka mid ahaa raggaa nabarka ku geystay ninkaas isaga ayaa meeshii dhakhtarka ayuu keenay mise waa lasoo qabtay mise isaga ayaa dhakhtarka u yimid siduu isku daweyn lahaa dhakhtarka buu yimid siduu isku daweyn lahaa wuxuu doonayana inuu dhigto arji ahaa ninbaa imaagay markaas isdifaac baan aniga nabarkan ugu gaaray inuu idhaahdo laakiin wuxuu ilowsanaa inay dhakhtarku ay kiiskaba sii hayeen taktiirta caalam beljimka oo dhan loo sheegay oo laga yidhi qof aksaliyadda reejiguta ka soo jeeda hadduu dhakhtarba soo galo loo soo sheega booliska laga yidhi booliska marka usoo sheegayna kii ugu horreeyey tegey uu isagu noqdo qofkii ugu horreeyey dhakhtar tegay ee waa daweynaya idhaahda taasuu boolisku ku dul qabtay oo halkaasu ku xidhay markaas isaga yaa la socday mise qof bay ahaayeen maalinta habeenku nabarkaas kugu dhacay waxa weeyaan inna waan arkayay inna mana arkayn weeyaan horta waxa weeyaan in indhahayga macaan baan ku arkayay dhowr qof inna manu arkayn laakiin waxaa soo saaray maanta waxaa noo soo saaray waa cadeymihii iyo waxaa noo soo saaray kamaradihiiba maanta wax kasta loo cadeeyey meelahay kala joogeen iyo waraysiga iyaga laga qaaday baa maanta loo cadeynaya in ay dhammaan ay ku wada dhannaayeen dad cadadkooda innaba caadi hayn ay ku dhannaayeen halkaasi imise qof baa lagu qiyaasi karaa dadka goobtaa joogay dadka markaas goobtaa habeenkaa joogay marka iminka raadiraac lagu waxeeyo iminka ahaan waxaan aan gacanta aan ku haysanaa oo cadeymihii ay noogu dhan yihiin ay noogu buuxaan 5 qof iyo cadeymihoogi ay noo buuxaan 5 qof waxaan ogsoonahay liban markii uu nabarkaasi dhacay isla 2 cisho ka bacdi inuu guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee loo yaqaano daaf inuu waddanka ka dhoofay uu dalka Djibouti tegay isaga oo nin laba nationality haysta oo mid European haysta iyo Belgium iyo mid TC waddankii uu ka yimid waa maxay sababta keentay inuu u baxsado isaga oo wax kiisa ay weli ku oodnayn waxa weeyaan horta wuxuu maaragtay de waxaan markuu hawshiisii uu fuliyey wuxuu muddo dhowr bilood ama 6 bilood ba uu joogay waddanka Belgium buu dhex deganaa uu joogay wuxuuna u baxsaday de hawshii welwelka badan ku haysay dhalinyartii dhibka ku hayay iyo amarkooda uu fuliyey wuxuu ka qaban lahaa hawl buu ka qabtay waayo wuxuu u arkayay qofka amba menas ku wada amba cadaadinka ku wada inay nidaam iskafahay buu haystay taasoo amarka uu bixiyey uu yidhi ninkaasi hawl ka qabta hawshii marka la qabtana si degdega sidaad usoo sheegtaba iyo waddanka dalka Djibouti u dhacgalay liban kiiskaagu mawid maadaama ay tahay kiis politic oo siyaasad ku wareegtay oo ay tahay welibana nin guddoomiye dhan oo xisbi ah ay arrinka ay tahay mid ay lugaha kula jiraan amba ay yihiin raggii ee mishinka wa fuliyey miya kiiskaagu ma waxa weeyaan mid waddanka Belgium ku gaaran baa mise waa mid international court lala tegi karo oo waddanka The Hague Netherlands la geyn karo oo ninkaasi loo gudbin karo horta imikahaan waxa kiiska ku haya dalka boqortooyada Belgiumka baa kiiska ku haya waxa weeyaan kiiskaasi de waxa weeyaan kooxda kamid ah labada dhinac
dhinacadday ku kalsoonaan weydo siiba dhinacayaga laga yaabaa inay maaragtay heeg ay tegi karayso amba international court European court ay tegi karayso oo halkaasi kiiska lagu qaadayo amba maxkamadda heeg laisla tegi doono waa haddii dadka daliilka aan ka sheeganay maaragtay dhibta noo geystay mid kamida la qaban waayo oo hadda waa mid kamida oo intii kale la qabtay taasi annagu waxaan dalban doonaa marka maxkamadaha kasii fidsan laakiin maanta sidaan arrimaha u socdaan si fiican ba u socdaan madaxweynuhu xisbigaa kusoo sheegay Djibouti galay si ugu degdeg badan baa loogu yeedhay maxkamadda ugu yeedhay iminka maanta aan kula hadlayana wuxuu ku sugan yahay dalka Belgiumka isagoo kiisku uu ku socdo oo aan si fiican u caddeeyo oo kiisku ku socdo oo waddanka uu ku sugan yahay dalka Belgium magaalada Kortrijk weli maxkamadii ugu horeysay weli yeeritaankii ugu horeysay maxkamadda amay dhacday mise weli wax weeyaan in su'aalihii iyo reportigii la qorqoro reportigii boo la qorqoray unbaa dhacday weli maxkamad yeeritaankii may dhicin laakiin waxaa dhacday inay dhinaceenu aan eegan karayno wixii laga soo qaaday calaamado wixii lasoo qaaday wixii telefoonka laga helay wixii laga helay kamarado wixii lasoo duubay dhinacoo kale waxay ku hadleen qoladii maaragtay istifaacisay laaris nabarkan manu geysan hadalladoodii oo dhan maanta inaan akhrisan karayno taasa maaragtay maxkamadda inoo suurto gelisay oo maaragtay bisha 15 16 17 saddexdaa cishaan ku jirnay arbaca khamiis iyo jimcaaba saddexdaa cishaan ku jirnay liban waxaan maxaad nooga sheegi karaysaa waxaa jirtay week mise 2 week ka hor inay arrintaadu ay gaadhay iyadoo la ogsoon yahay in arrintaada lagaga hadlay baarlamaanka Djibouti maxaa keenay oo soran kartaa in xaggaas fadhigaas laga yeesho wallahi fadhiga waxa oran karaya fadhi maaragtay aniga amba dawladdu maaragtay naxariis ay qabto maaha waxay halkaa uga furayso wadan iyada gaar ay ka leedahay aan cadeeyo dan iyada gaar ka leedahay waayo waxa dhacday dilkan foolxumada markuu dhacay waxa dhacday inaan anigu aan farta ku gudo anigoo mucaarad idhaahdo mucaarad baa idilay xisbiga MRD baa idilay oo odagaa Daahir Axmed Faarax baa idilay xisbigiina uu iska riixay oo wuxuu yidhi kan mucaarad buu ahaa dawladda dishay yiri marka dawladdu waxay dawladda Djibouti ama baarlamaanka Djibouti waxa laga hadlay oo la yiri waxay dawladdu kiiska ku furanayso waxa weeyaan annakii baa lagu soo riixay dilkan oo maaragtay mucaaradkii baa lagu soo riixay xisbiga baa lagu soo riixayna taas oo furanaysa laakiin liban dan gaara oo liban ay u leedahay uma furanayso leedahay waa sax waan garanay liban waxaan ogsoonahay kale inay jirto inay jirto nacamtii maadaama imika kiiska saa u socoto inaan maqalnayn lawyerka ku doodaya iyo dadka asxaabtaaya iyo adiga laftigaaga inay jirto cadaadin badan inay ku timid oo dhanka lawyerka oo kale in amba adigaba lagula yimid in la yidhaahdo nacamtii kiiska ma ka tanaasuli kartaa amba ma lagu dhamaysan karaa xeer hoosaad nacamtii waxyaalo noocaas meelana waxaan ogsoonahay lawyerkaaga san wararka ku hayno in loo tegay oo lagu yiri arrinkan waa dad isdilay oo shakada waxaan ku dhamaysan karanaa xaafad ahaan baan ku dhamaysan karanaa amba local ahaanba arrinkaasi maxaad nooga sheegi karaysaa ma wax jiraba mise waa wax propaganda horta waxa weeyaan marka ugu horeysa waxaa jirta ma ogtahay wixii ka dhacday waa dhul Europeana waddankeennii Soomaaliya amba Djibouti dhulkeennii hadda ka dhici lahayd malaha geed baa la isla tegi lahaa geed baa arrinka lagu dhamayn lahaa halkan geedku ma jiro dawladdii qaraarkay qaadato waa qaraar qaadatay qaraarkaas markay qaadato ee xeerkayga ay ka fuliso laga yaaba inay maaragtay geed gaar ahaan loo kala fadhiisan karo laakiin waxay dawlad gacanta karayso maaha wax iyagiiba ka yaabisa weeyaan waa maanta waxay ku tirinaysaa waa argagixisnimo hoose waayo waxaas arrintaa ay sababtay inay dad caddaan ah oo boqortooyada Belgiumka ay u dhashay ay ka naxaan qaarkood cunteen waayaan qaarkood ay idhahdaan sidee bay u suurtagali karaysaa qof idinoo bilaadan oo nool in labadiisii indhood laga saaro taasoo qaabayo nacam wax yar qoraal yar oo qoray oo keliyaata maya waa saxsan tahay nacam waxa weeyaan geed lagu dhamayn karayo arrintan uma eeka yaan jeclahay maya waa sax dadka aniga gaar ahaan dhakhtarka dad ugu yimaadeen ay yidhahdeen
maadaama mucaarad hayd sharaftii ku dhimo mucaaradka oo dhan dowlad baa dishay taas marka waxaan marinaynaa in qodobo ayaa la marinaya halkan maxkamadda yurubta in qaraar laga qaato waddanka dowladda ama xukuumadda Djibouti laga qaato taas ilaahay baan aniguna ka baqay inkastoo aan samayn kari lahaa laakiin ilaahay baan ka baqay waayo aakhira dambaysa qof aan ku dilin adoo idhaahdo uu idinay qiyaama dambeeyo qiyaama lagu soo taagay liban kuwa sidaa ku yiri ayay ahaayeen markaas ma waxa weeyaan MGO ba ma USM ba kuwa kule xusbiga xaakinka imika Djibouti xukuumayaan rabnaa in kiiska ku wareejisid maadaama uu helin mucaarida oo lagu yaqaano oo xubno firfircoon oo caan ka ahaaya xubnaha mucaaridka sida eedaada ku wareejisid waa dad taabici jiray xisbigan MRD la dhaho nin cadaana iyo nin kaloo maaragtay reer Djibouti oo qabo labada yaa maaragtay dad ama oran karo anigoo ixtiraamaya wadad reer qowmiyadhaaba maaragtay yiri arka haddaad halkaa ka dhigtid markaa yarba qodoba laga qaadan adiguna taariikhdaad galay oo maaragtay mucaarad qofkii ugu horreeyay mucaarad u dhinta baad noqonay oo dee sharaf baad lahaani laakiin qiyaama dambeeyaa yidhi taasaan kagaa laabnay waa sax si fiican baad nooga dhargisay dadka qaar u marnay in arrinkaa u sheegno waayo oraahda dadku ay suuqa amba baraha meediyaha isla dhaadhaafayaan ba ahayd in arrinkan inuu si hoos ahaan amba reer lagu dhamaysto amba sidaa sheegtay dhaqan la hoosgeeyo kusoo wareejinayeen laakiin waxaa sidaa sheegtay alxamdulillah waxay ka dhacday waa waddan cadaalada oo westerisa oo xaquuqdii iyo xaqiiba garanaya aad baad umahadsan tahay liban aragtidaadii iminka xagga amba himiladii aada higsan jirtay sidee baad markaas iminka ay kuula muuqataa wax isbedeloo xaggaa ku yimid ma jirtaa wallahi waxa weeyaan deeqo waxa weeyaan maanta amestimantaad iga dhagalay baan odhan karayaa amba waxa iga galay baan odhan karayaa dhaqaale baa iga galay waayo wax bay ugu qiimo badnaa baan ku waayey aragtideedii maadaama ku waayey wixii ugu qiimo badnaa xubnihii ugu qiimo badnaa labada dhaayood ahayd maanta waan fikirkaygii hore umaan kusii adagahay mucaaradkaygii umaan sii ahay waana kasii xoojinaya cadaaladii aan doonaynayna waan doonaynaa isbedelkii aan rabnayna maanta umaan kusii socon karaynaa si fiican waa sax liban waxaa jirta inay dad badan oo Soomaaliya ama reer Djibouti ba ahaato oo qurbo joogta ah inay gargaar badan iyo ay isku dayeen sida ku garab istaagi lahaayeen ay heel iyo hooba kula taagnaayeen amba talooyin ay soo jeediyaan amba xaq dhaqaale iyo dhinac kastaba iyagoo oo markaas moraalkooda muujinayay dadweynahaasi maxaad rabtaa inaad ku tiraadid wallahi dadweynaha waxa weeyaan mahadnaq aan in laba caadi hayn baan u jeedin lahaa waxaan ka odhan lahaa oo keliyaata ilaahay miisaanka xasanaadka hanigu bedelo tabarucaad aniga ii tabarucdeen hiilkaad ii muujiseen gargaarkaad aniga gargaarteen ilaahay maalinta la qatan yahay la qaawan yahay qiyaamaha ilaahay xasanaad hanigu bedelo ilaahay jannoon hanigu bedelo baan ka odhan karayaa dadka innaba la koobi karin malaayiin qof ahaa Soomaali u badnaa maaragtay isoo gargaaray amba hiil amba ka diriray ka gelgishay yidhi arrintaa waxsinimo maanta ninkaa ku dhacday baan ag joogaynaa oon la qaybsanaynaa dhegtiisii wallaahi aad baan u mahadnaqi lahaa waanta waxaa ugu qaalisan nolosha waan ku celceliyaaye nolosha waxaa ugu qaalisan waa waktiga iyo maalka labadiiba maanta way bureen waktigoogii iyo maalkoogii وانا قوم هلا بالله إلهي ألك إلهي نوكي شيء ما ولا أدي أدوات ما صنتها ورنتها ليبان واحد جرتا هنددات بدن أمبا جالا بوتين عجا شغلين وقت كان حاضر كسعوتا دات كاس مركز اسكو دعوة اسكو يستين أمبا دات تاجيريا oo iyaga ka soo jeedo amba iyagiiba haato amba dad iyaga ka soo jeeda oo taageeraya ha ahaato waxaa jirta saan maqalnay inay hanjabaadaasi amba cagajugleyntaasi ay tahay mid lagugu celiirinayo sida kiiska afraha uga qaadi lahayd amba aad isbedel kale loo keeni lahaa taasoo jirta inay adiga amba dadka kugu meeragan
ay soo gaadhay arrinkaasi ma wax jira may tahay arrinkaas oo wax jira weeyaan oo kolkii ugu horreeyay u dhacay maaha waa kolla maaha labana maaha saddexna maaha maalin dhexdeeda waxa dhacday inan asxaab aan nahay inan lagu qabsaday masaajid dhexdiisa ruux haweenaya ay ku dhex qabsatay masaajid dhexdiisa dirba loo kala riday haddana waxa weeyaan dib kalaa dhacday dad kalaa dhacan iskula tegay waxa weeyaan waa joogto horta ma arkaysaa cadajuglayntan iyo handigaatan waa handigaad joogtaa haddii ay noqoto mid facebooka dadka laga caayo oo laga idhaahdo liibaan ininkaa ku xiga dadkii aad joogay ii gargaarayay laga cabsiiyo siday igaa kala dareeraan maanta oo xidba ii agjoogi weydo amba haddii ay noqoto qacanka hadal oo dadkii qacan lala soo galaba waxa weeyaan waa handigaad joogtaa weeyaan waxaa nasiib darro noqotay maanta si waxa weeyaan dadkii waxaan galabsaday halkii ay dhuuman lahaayeen amba isku laami lahaayeen ceebtan ceebtan ay geysteen amba dhibtan ay geysteen haddeed ay ka fikiri lahaayeen guryahooda ku xaroon lahayen waxaa dhacday dadkii inay dhib kale maanta sii geystaan taasaa dhacday nasiib darro waan garanay fidnadna waxa weeyaan waxaan halkan ka soo wadaana waa fidnad fidnadba taasoo fidnaduna ay fiicnayn laakiin waxa weeyaan marka kolna noqon weydo labana maaha saddexna maaha andigaad iyo weerar joogtaa dadkii lagu qabto fidnad lagama maartamayaan odhan karaya waan garanay maxaad usoo jeedin lahayd inakoo waktigu nagu gaaban yahay runtii maxaad usoo jeedin lahayd dhalinyarada amba dadweynaha reer Djibouti amba ururka dhaqdhaqaaqa dhalinyarta mucaaridka ee MGO maxaad baa usoo jeedin lahayd dadka reer Djibouti aad u sheegi lahayd wallahi waxaan ku odhan lahaa maanta marka ugu horeysa ururkay anoo aan kamid ahaa dhalinyarta waxaan odhan lahaa mowqifkiinii hore ku socda waxaan odhan lahaa dariiqii aad haysateen toosnaa ku socda waad arkaysid maanta cabsiis iyo qof cunaqabateen lagu qabtay in maanta horumar dad ay gaarsiin weyday waad arkaysid inay maaragtay qofka dhib kastoo loo geysto mowqifkiisa uu kusii socdo waxaan odhan lahaa wax nigama horjoogaan isbedel doonkaada haydeen uun isbedelkii doona isku duubnaadana midooba dhalinyarta reer Djibouti waxaan odhan lahaa sidaa isle isku duubnaada cadaalad darrada ka dirida dhammaantiina isku duubnaada qabiilna ka kaalaya taasaan ku odhan lahaa maarkasa maanta ay maaragtay qabiilku uu noqday maaragtay kitaab qorta oo qof kastaba xaashada ugu horeysa ka akristo waxaan ku odhan lahaa taa ka kaalaya waxaan arkaynaa Soomaaliya halkay dhigtay qabiil ka kaalaya oo maaragtay midooba baan odhan lahaa isku duubnaada aad iyo aad baad mahadsan tahay runtii waa kaaga mahad celinayna waqtiga qiimaha leh aada noo hurtay dadweynaha na daawanayana waxaanu sheegaynaa inaan insha allah liibaan maanta waqtigu nagu yaryahay inay ku ekaanin aan liibaan dib u warsan doono inakoo marka dambe toddobaadada soo socda ka warsan doonaa dhakhtarka liibaan amba caafimaadkiisa amba xagga uu nuurkiisii sheekadu u maraso amba uu waraasan lahaa iyo dhakhtarada la soo xidhiidhay amba meelaha uu la xidhiidhay isagu inaan liibaan kala sheekaysan doono isagana dhaqaalaha markaas dhakhtaradaasi ay ka rabaan iyo siday wax u socdaan arrimahaas oo dhan inaan insha allah aan ka warsan doono toddobaadada soo socda aad iyo aad baad mahadsantihiin daawadayaal wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu